xaaladda guud ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa weli kacsan kadib markii xalay uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo maleeshiyada deegaanka ah oo hubeysan. Dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay xaafadda Warlaliska waxaana la soo warinayaa inuu sii kordhiyo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay dagaalkaas. Inta la xaqiijiyay waxaa iska horimaadka ku dhintay 4 wiil oo ka mid ahaa dadka deegaanka waxaana ku jira Muzammil Yuusuf Cusmaan oo 3 jir ahaa sida ay inoo xaqiijiyeen ilowradyo deegaanka ah oo lagu kalsoonaan karo. Sidoo kale waxaa la soo warinayaa in khasaare uu gaaray dhanka ciidanka waxaana dagaalka ku dhintay 4 askari sida ay ogaatay warbaahinta Rajo. Wararka ayaa intaasi ku daraya inay weli socdaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeed ah oo ay wadaan labada dhinac, taas oo iyana abuuri karta in mar kale uu dagaal ka qarxo xaafadda Warlaliska ee degmada Daynile maadaama isku urursi balaaran uu socdo. Dhanka kale, shacabka ku dhaqan xaafadda Warlaliska ee degmada Daynile ayaa intooda badan iskaga barakacay guryahooda si ay uga fogaadaan waxyeello ka soo gaarta dagaalka socda. Xiisadan oo soo noqnoqotay ayaa salka ku haysa howlaha banaynta dhulka danta guud ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado magaalada Muqdisho. Waxaana maalmihii ugu dambeeyay degmada Daynile ka taagnaa buuq xooggan oo gaaray ilaa ay soo farageliyaan xubnaha mucaaradka oo garab u muujiyay dadka shacabka ah ee degan xaafadda Warlaliska ee degmada Daynile. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa meelo badan oo ka mid ah caasimadda waxa ay ka sameysay burburin iyada oo maalmihii ugu dambeeyay cagafta marisay xaafado dhowr ah oo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaana dadka qaar ay sheegayaan in tani ay tahay tii ugu dambeysay ee arrimaha dhulka dowladda federaalkuna ay qorsheynayso inay gabi ahaan bixirto burburinta iyo cagafta ay la dul taagan tahay xaafadaha gobolka Banaadir.